qaybtii labaad ee barnaamijkeena ayaynu u gudbaynaa iyadoo waqtigu aad inoogu yar yahay waqtigana waynu luminaa hadhowna waqtiga ayaynu ka cabanaa yaraantiisa qaybtii labaad ee barnaamijkeena ayaynu geli doonaayay waxaanay ku saabsan tahay afka Soomaaliga iyo qoraalkiisa iyo caqabadka hortaagan 15 sanadood ee u dambeeyay waxa la qoray ama 15 sanadood wixii ka horeeyay buugaagta qoran ee af Soomaaliya ee tan iyo intii af Soomaaliga la qoray suuqa soo galay 20 kamay badnayn laga soo bilaabo sheekooyinkii Maanafay iyo ayaan daran aqoon darro nacab jacayl taariikhda iyo gabayadii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo buugaagtii qaamuusku kamid ahaa iyo waxyaalihii la midka ahaa ee toddobaatanaadkii iyo wax yar oo aan badnayn oo la qoray xilligii 80aadkii ilaa 90aadkii ilaa horaantii 2000 haddii la isku minguuriyo sodomeeye buug kamay badnayn 2014 wixii ka dambeeyay oo haatan 15 sanadood laga joogo waxa la qoray buugaag tira ahaan dhowr kun kor u dhaafaysa oo afka Soomaaliga ku qoran hadaba caawa waxaynu isla eegaynaa buugaagta badan la qoray maxaa ka soo baxay waa maxay caqabadku ama uu qoraagu la kulmo ama hay'adaha daabaca ee publisherska loo yaqaana dhibaatooyinka ay kala kulmaan ama haddii dhinac kale laga eego tayada dadka akhriyaya buugaagtaasi waxa ay markaa falcelintooda iyo sida ay u arkaan halkan waxaan u yeeri doonaa 4 qof 2 publisher ama 2 hay'adood oo wax daabaca oo buugaagta soo saara marka qofka qoraagii uu buugga qoro ee uu dhamaystiro hawshii uu geliyay hawl u dhiganta ayaa amaba ka badanba ayaa hadha oo in buuggii dib loo eego la tafatiro la naxtiimo daabacaad la geeyo inta ka horeysa la nashqadeeyo jildi loo sameeyo deedna hawshii ugu weynayd waxa weeyaan in la store gareeyo meel la dhigo isla markaana la suuq geeyo dood baynu caawa arrinta ka furaynaa halkan 4 qof baan u yeeri doonaa 2 ay dhinaca hay'adaha wax daabaca ka socdaan laftirkooguna wax qora ninka hay'adda haysta waxna waa qori karaa qoraalka iyo 2 qoraa dadka wax qora deedna idinka ayaa sidii caadiga ahayd doodu idinku soo wareegi doontaa baladina ra'yigiina iyo saad aragtaan wixii halkan laga yiraahdo ama wixii tale aad haysaan caqabadka ku saabsan afka Soomaaliga qoraalkiisa aan u yeero hadaba Cabdi Maxamed Cumar waa Cabdi Maxamed Boobe oo aad wax u qora magaalada Bristol ku nool kamida dadka Soomaalida ee kulliba afka Soomaaliga sida tuulmoon wax ugu qora aan u yeero halkan ha soo fariisto saacabka loo tumaha la soo dhaweeyo walow uu caaw buug cusub inoo sidin haddana si joogto ah maalin la ayuu afka Soomaaliga wax ugu qoraa isagoo adeegsanaya wargeysiyo iyo maxay haytooy social media waxaan loo yaqaano waliba waxa inta u dheer waxa uu turjumaa oo afka qalaad ee Ingiriisiga ka soo turjumaa waxyaalo aad u fara badan oo dhinaca af Soomaaliga uu keenaa aan u yeero Zainab Daahir oo kol horena halkan aad ku kulanteen iyaduna kamida dadka wax qora galool marra waa soo saare buugaagineed marra waa qoraa koofiyada imkiisa waa tii qoraaga Zainab haddii ay joogto Zainab hal soo dhaweeyo waxaan u yeerayaa Maxamed Yuusuf oo nin da'yar soo saara buugaag badan qora oo kala duwan daabacaad dhinaca daabacaad ka socda Maxamed aan u yeero
أنا يارو جامع موسى جامع وأنا كوفيدي قراقة سيدنا لكن تيد سوساريست بوجاكت تابعت بولي هاي سنة بوجاكت تابعته ما هي سنة وقت بدن وقتي وهالكنا وين طبعاً أو ربع لا كوكلا ترى هذه الله أود اللي هي إنه سامحوا إن خير أفرتن دقيقين وهي سنة هالكنا وحنسكت ديتونا عشان دقيقين إنه كيسو بودنو نوولي با يلين كستيبا أي سوكوبتو الموضوع على جهة ضيّو كوسابسن قرالك أفكار سوماليكا إيو عقبات كهرتاجن أنكو هريو قراقة عبدي عمر بوبي سودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد واندو هاي runtii sida aad sheegtay caqabado badan baa horyaala dadaal badanna waa la sameeyay runtii waxyaalaha ugu badan waliba imika waxaynu ognahay teknolojiyada casriga ahayd oo xawli baan ku socota aadna loo isticmaalo runtii anigu markaan buugta qoraayada aan buug soo qaado dhowr wax baan keega waxyaalaha aan badanaa imika arko wax weeyaan horta ninka qoraagii fariin buu gudbinaya marka fariinta seebaa loo fahmi karaa qofku u qaadan karaa waliba waxaan ka eegaa xagga calaamadaynta waxa afka qalaad lagu yiraahdo punctuationka nin inamadeenii sawaaxil ku korayo saaxiibna ma habeen wuxuu yiri war heedhaaf Soomaaliga cabdi waad wax ku dhigateen ma bala calaamadeen waayo waxaad moodaa buu yiri imtixaan gidaar lagu soo dajiyay marka aan website eegno markaas aan ku wari war dawaan lahaan jirno yaa joogsi iyo hakad iyo bil xiran iyo bil fur inta waan lahayn baan nuri anagu laakiin miyaa la isticmaalaa imka waxaad arkaysaa dhalinyarada iyo social media iska salaamay ama ka salaamaya waxay ka dhex saarayaan marka qaarkood shaqaladii oo dhan bay ka saarayaan waxay ku soo qorayaan s ta ha ya waxay ula jeedaan seebaatay يعني قفك بن آدم كحب قاهرة سقط دار وحبوك ويدينيا مركح وين سيدابي هبين بروح عن كيرا قري وحن إيجي بالسيد اللي فهمه شيكير بان كسميو دحال محكمة جدول الإسكوايستي مركزا مركي محكمة دي مدرسة عتبة وحلا صهر دقي حاكمكي أيام لما مرخاتي أون سوقين أو كلا دوين أو سوقرين مركا منه لبض بحي قرين محمد إن كيس علي وأيود حالان وشي جورجا سوق كيال دبقة لكن من نوع حسمي محمد إن كيس حكت علي حكت أيو قلي من بلا حكت بوا حاكين كي وحيري وإنما كلا شيء كان هل كي بعض غير كناع إن marka waxa dhacday inaguna wuu wax walba digri taqabiyaaleed inuu ka eegna ilaa inay waxaan ka dhigay marka shay kamala walo inay odayaal soo fariisteen oo xaakinkii iyo maxkamadii baree hebelnimo lagu eeday mar dambe waxa la ogaaday xaakinkii waxa la yiraahday labadan inay kala qoray labadan horta way dhinteen midna waa maxamed walaalkii midna waa saaxiibkii shoo maxamed kanow intuu qurbaha yimid buu gabadhan halka ka yimid halkan gabadh kale ku guursaday gabadhaas waxay u haysay inan iyo dhowr hablood halkana laba inan oo mataana sheekadii baa la doonaa waxa soo baxday in dhaxalkii ay inama kala jiraan waxaana saxay waa hakadka kaliya hakadku halka xaq ayuu u soo dhiciyay dad xaq darro ka dagaalamay inaguna waxaad moodaaba inaynaan mataqaana calaamadaynta war marka qof qoraalku wax gudbinayo in horta la saaro aad iyo aad xagga calaamadaynta ayaan aad imika u jeclahay oo bugaagta qaarkeega waxaan moodaa runtii bugaagta qaar markaad eegto waxaad moodaa barada kulul liqdo halka ku istaagto sama darag ya waayo hadii aanad kala saari karin oo sheekadu say u xiran tahay ee u xiriirsanayso fariintan u gudbinayo waxyaalaha qaar waxa lagu gudbiyaa sheeko faneed waxaan noveliska la yiraahdo marka waa muhiim in aynu aad iyo aad taxsan teeda kale waxaad moodaa waxa inaga maqan suuqdan waxaan la yiraahdo sector ama digaal gorfeeyaashii baan jirin waxaan afka qalaad lagu yiraahdo literary critics marka buugii marka la soo qaado waan arkaa dhalinyaro isku dayda haddana waxa wax badan baa maqan waxaad moodaaba inay qofka shakhsiyadiisa iyo halka iska dhig qoraalkan siiba ku hagsin calaamadayntu runtii waa wax aad iyo aad mar walba la isku qabsado inaan tib wax laga yaabo qolooyinkiinan halkan wada jooga waa taqaanaan ina buugan la yiraahdo ciyaalka loo qoray Harry Potter inanta qortay waxay noqotay adduunyada baa laga yaqaan caan bay noqotay waxa laga sameeyay macallinkeedii baa maalin wareysanay wuxuu yiri wali qaladaad bay sameeysaa
qaladaadkaasoo ah calaamadayntii punctuationkii weli qalad ku samey hadda waa naagta dhan adduunyada laga yaqaan marka waxay ku xiran tahay in aynu gudbin anigu runtii arrinta aad iyo aad baan u eegaa iminka waxaynan u baahannahay in nimanka qorayaashii lagu dhiirigeliyo weliba saxaafadeennu ay ka qayb qaadato runtii waa ayaan daro suxufiyiin waaweyn oo la yaqaano oo markay wax qorayaan aanad fahmaynin qofka bini aadamka waa in la fahmaa waxa uu qorayo markaynu qalinka af soomaaligeennii dee tadawur badan buu soo samaysaa maxamed sheegay marka anigu bal halkaasaan kusoo koobi lahaa waa tahay aad buu maxamed cumar boobe u mahadsan yahay intaa cumar hoosta ka xariiqay amaba uu calaamadeeyey Zaynab Daahire muddo ayaad ku dhex jirtay qoraalka caqabaadkiisa waad wax badan baad kulliba la kulantay maxaad ku dari lahayd bismillah wallahi cabda dhameeyay badan waxaan ku dari mid imaka caruurtii dibadda ama ku dhaltay ama ku kortay maalinta dambaysa way badanayaan way sii badanayaan iyagii baaba imaka dadkii imaka sagaashanadii yimi iyagii baaba waalidiin ahoo dee caruur dhalay in yar oo aan badnayn ayaa afka raadisa oo magaranaysa inay afkii da isku taxallujiyeen ay afkii bartaan oo ay usii gudbiyaan caruurtoodii intaas miyaan inta wax qoraysaa mas-uuliyad ka saarnayn in wax taya leh oo dee ay raadkiisa ay guri karayaan in loo qoro miyaanay mas-uuliyad inagayna saaran aanay ahayn maxaan caynkaa u leeyahay buugga maanafay haddaay waa tii lasoo yaraa magaranaysaa hadal qaaday ha maanafay cajiib yani waxaad arkaysaa characterska ama dadka maaragtay matalaya jilaya sheekadaasi deegaano kala duwan bay ka kala imanayaan soo maaha hadalkay ku hadlayn isagoo af soomaaliya hoodee qolo walbada ay accentkooga ama magaranaysaa dialectkooga ay ku odhan karayaan ayaa haddana kala si loogu dhawaaqaya ya imika meesha inagu weeye aynu ka leenahay dad waaye odhanaya ma garanaysaa waa lahjadihii lahjaduhuna waxaa la yidhahdaa lahjad kastaaba makaankeeda ay sax ku tahay ay ku sax ku tahay laakiin marka buugga maanafay aad akhrinaysid yani waad ugu tegaysaa lahjadii baad ugu tegaysaa adiga kugu khasbaysaa inaad lahjadii keentid ya oo aan khalad ahayn oo waaye arag baad meeshii aad ka qaadaysaa mid kalena way jirtaa oo ah maxaan ku idhahdayey yani imika xabad iyo xabad baa la kala sheegaa imika buuggan caasho ay iibsato yari eegayay baa isagana kelmad ay iga soo boodo minisaa u jeedin waxay u jeedinsaa marka bacbaa ka maqnayd markuu maaragtay shaqalkaa libin laabmaya uu meesha ka maqnan yahay iska fudaydsatii shiibanaha libin laabmay markaad fudaydsatid intiina af soomaaliga dee ku magaranaysaa ku ceeshaysa qoraysa maalin walba qoraysa social media ka buuxisay adigoo xabad doonaya inaad tiraad markaad xawad qortid dadkii magaranaysaa afka baranay siduu u baran waayahay sidii buu si u fahmay afka iyo lahjaadka marka laga tago spelling baan meeyo ugu tagay editing waa caqabad buug dhan oo akhrido editing uusan meeshii u jirin waa caqabad ka waxaan oranayaa dadka maartay doonaya inay wax qoraan okay adigu fikirkii iyo waxaad la timid ii sheeg visionkii baad la timid sheekaad haystaa sheekada waxa laga yaabaa micno weyn ba inay ku fadhido conceptkeedu de concept weyn hayo laakiin qoraalkeedu si uu tolmaanaado dad baa isku taxalujiyay yiri publishers baan nahay oo ma garanaysaa ka sixi karaya yani investment gashada in aad il kala soo marisaan oo idinka eegto oo idinka hagaajis masaasad u jeed xataa haddii aan laga bedelin su'aal un baaba kugu soo kordhisa masaasad u jeeday mise sidaas marka samaysan u jeeda saas kaaga haboontay marka shayga editor-ka la yiraahdo ama qoraarin odhanaya qaar baa odhanaya tifaftir qofkaas in aynu ma garanaysaa aynu awoodiisa aynu dee ka buuxsano buugta galbeedka lagu qoro 250 page hal mistake ayay u qondeeyeen in laga helo yani waa minimal samaha waa almost zero inagana bog walba baad sheegtaa paragraph kasta khalad baa ku jira marka hortaas waa mushkilad ay dadka maartay wax taabacayaan ay la kulmaan maxaan ku idhaahdaa inta kalena cadaba waa tahay halkan waxaa ila fadhiya laba nin oo waxna qora run ahaantii buug soo saarayaa la ah
ninka ama hay'adda buugga soo saaraysa ama buugaagta qoraysa waxaa lagu tilmaami karaa umuliso kaalinta umulisadu ay ka qaadato doorka ilmaha dhalanaya ayay ka qaataan buugga ay markaa doonayaan inay soo saaraan bal caqabaadka aad kala kulantaan buug ka kooban dhowr boqol oo page 100 ilaa 200 ilaa 300 oo bog oo gacantii ugu horeysay qoraaga ka soo baxday haddii ay noqoto afka ay ku qoran tahay haddii ay noqoto fariimaha ay soo gudbinayso caqabad caynkeeya baad kala kulantaan oo 1 iyo 2 iyo 3 la oran karo intaynan xalka iyo waxa gudbin maxamed umuliso ma ka tiro umulisada wax badan waa inay xil qarayso markaa xoogay hadalkan soo diyaarsaday qayb waxay noqonaysaa ma ha qarinin nin weyn iyo umuliso siday wax wada og yihiin waxba wada sheegaan bay mahmaahdu ba ahayd haddana waxaan uga leeyahay hawsha la qabanayo culeyskeeda waan idin ka raali gelinayaa wuxuu ka socdaa oo uu leeyahay daabacaadda la yiraahdo garanuug ama nin walba isaga inoo sheegi doona halowda hay horta waa aniga waxay daabacaad iyo af Soomaali la qoray iyo waxa soo dhan shaqo kumaan lahayn markii hore laakiin weliga ilaa yaraanteedii qoraalka iyo akhriska aad baan xiisan jiray waxaan ay u kaliftay tan hadda tilmaamaysid oo ahayd inaysan jirin buugaag badan oo Soomaaliya af Soomaali ku qoran oo tayale oo ay dadkii akhristaan way dadkii maanta hore in lagu dhiirigeliyo inay wax akhriyaan haday tagaan wax akhriyaan aysan haynin ama qofkii isagoo xiiseynaya oo markuu is iraado wixii kala fo wax macna la meeshii ku jirin waxay noqotay inaan bal isku dayno inaan wax cusub aan keeno aan halkaas ay markaa garonuug ay fikradu ka timid waliba magaca waxaan magacyo badan baan ka fakiray markii dambe ay noqotay kan inaan qaato oo erey afkeena u gaar ah afaf kalena ay inaga qaateen oo Englishka naga qaateen iyo afaf kale sidaas bayna runtii ay ka timid waayo haddana waxaan sheegay ustaad Cabdiraxmaan Abtidoon waxaan jeclahay wax dhalada inaynu haysano dad waxaan nahay afle dhaqan le hidde iyo sooyaal le maaha maanta oo dhan inaynu wuxuun soo qaadano wuxuun soo amaahano marka waxayna inaynu hadda waa kan shirkadda Apple adduunka tufaaxiba magac la inooga dhigay wax weyn oo qiimo leh hadda la inooga dhigay marka inaga waxayna haysanay inaynu ku faano aynu banaanka soo dhigno tan buugaagta iyo caqabadaha runtii ka jira waa sida la sheegay tifaftirki maxay ahayd gorfaynta iyo buugi markuu soo baxo in dadka ay la falgalaan oo wax laga yiraahdo la qiimeeyo waayo waxaan hal maskax buu ka yimid laakiin in la qiimeeyo la yiraahdo waxaan qiimahaas u leeyahay ama la yiraahdo kuba noqobade waad la seegtay midan ama wixii la yiraahdo waa hawl weyn oo qabsoontay maqaamkeeda la dhigo oo la sharfo waxaas oo dhan ba hadda way naga maqan yihiin runtii midda runtii aan wali dhibaatada nagu haysto waxa weeyaan qoraaga Soomaaliyeed maadaama aynan lahayn madbacado iyo shirkado buugaagta sameeya oo tayo leh sida halkan ka jirto kale wuxuu u bartay inuu intuu fadhiisto buugiisi qoro Microsoft Word ama wixii kale oo isticmaalayo isagoo madbacadu u diro buugiyo qoran loo keeno ka bacdina uu sidii suuqa ku galo ku iibiyo laakiin markuu buug lagu soo diro leeyahay buugana raba inaad noo daabacdid aad intaad eegto ku tiraahid ma horta bal intan dib u soo qor oo halkan hakad baa ka maqan halkan ereygaas maxaad uga jeeday saasaan uga jeeday ma saas maaha sidii Zainab sheegaysay in badan runtii way yaabayaan waxa ku leeyihiin may sidiisa u daa wayna dhacday waxba ka bedelin hataabanin waxaan idee buug hadaa rabtid inaan daabacno wax tayo la soo saarno waa inaan buugi kula eegno xitaa haday dib u qoris noqoto waa inaan diyaar u tahay inaad wixii dib u qortid waana runtii waxa keenaya buugaagta halkan lagu daabaco in buug weyn oo 500 oo bogaad hal khalad ama waxba ka helinba dad badan baa isu daba maraya waa hal editor xitaa kaliya maaha waa ilaa 5-6 baa isu daba maraya oo midka ugu dambeeya oo hakadka iyo joogsiga iyo wixii oo dhan uu eegayo ka ugu yar wuxuu sameeyaa wixii la sheegay xogta meesha ku qoran ruma tahay misamaha oo maalin fadaxad ka dhacday qorayaasha caanka halkan ka waxa aan jirin buug ku qortay buugii oo madbacada loo diray baa laga soo celiyay intiina waa la gubay waxay noqotay dib in loo saxo marka taas hortii runtii waa dhibaato weyn oo qoraaga Soomaaliyeed haysata buugaagtiina dhibaato u keenaysa marka waa inuu qoraaga u fahmo in uu buugiisu tifaftir u baahan yahay hadii lagu soo celiyo la dib u qorna inuu diyaar u noqdo inuu wixii dib u qoro tusaale adeer maxamed baasho ila jooga waan soo qaatay buug inaan su'aalo ka dhigo horta buugaagta Soomaaliya buuga haduu jaldigiisa waxay yiraahdeen don't judge a book by its cover laakiin waa muhiim
buuggan jaldigiisa hadduusan kusoo jiidan badanaa waad dhaafaysaa marka buuggan markii hargeysa lagu soo daabacay xogay waxaan idhi ma kan nama qabto jaldigiisa hadda waa dee run baan umulsanimadu waa tii liihaa samaynintii marka waan la hadlay maxamed waxaan ku yidhi buugga markuu iisoo diray waa inaan dib u eegno buuggii oo daabacan dib baan u eegnay kan baa ka soo baxay waa markii hore wuxuu ahaa 180 bog haddana waa 320 waxay noqotay marka inaan ku darno cutubyo ka maqnaa af Soomaaliga oo in yar taariikhii qoritaanka ay kaga jirtay kii hore waxay noqotay inaan cutub dheer aan ku darno waxay noqotay ahmiyadii afku leeyahay inaan cutub dheer ku darno maansooyin ku jiray sababta ugu daray maxay keenaysaa hooyada kaalinta ay ka qaadato ilmaha barbaarintiisa iyo afka inay barto iyo hodantinimada afka ay ka qaadato way ku qoran tahay laakiin tilmaantii inay kaalintan leedahay inaan ku darno marka in qoraagii sidoo kale Boodheri baa isla jooga oo buuggan isla soo saarnay buuggan qoraagiisa oo af Ingiriisi ku qoray dhacdada wixii Muqdisho dagaalkiina u soo dadkii ka qaxay ku jiray book English intuu ku qoray baan buuggii helnay marka yani buuggan waa muhiim in la turjumo waxaana ka mid tahay waxyaalaha aan tilmaami doono buugaagta tayada leh in la helo markii la helana in badan qoraaga Soomaaliga ah wuxuu kalsooni ku qabaa waliba inta aqoon-yahanimada shaakada xidhan inay English wax ku qoraan maalin wada ma sheegi qofka magaciisa ku buuggan aad buu muhiim u yahay oo jiilasha Soomaaliyeed soo socda buu muhiim u yahay afkoodina kuma qorin aan turjunna ugu yaraan Boodheri ma sha Allah aad turjumaad ugu fiican baa noo joogay wuxuu yiri Soomaalidu waxa ma akhrido hadalku ma soo celin waas kaga dhaqaxan badda ku dhaxaba gubta haduu rabo buugaaga mid labaad baanu qoranayna laakiin inaad nagu tirahay Soomaalidu waxa ma akhrido nama qabato hadana ma ajnabi baad nala xaman marka anaga wax naga qorayso English ku qoraysid marka qoraaga Soomaaliyeed inuu afkiisa inuu ku kalsoonaado oo dadkii wax ugu qoro wax ugu kaydiyo kalsoonina inuu lahaado qoraaga dhibaatada kalsoonida haysto waxa kamid ah qoraa Soomaaliyeed oo waxaan khabiir ku ah u soo joogay inuu qof shisheeye ah oo aan joogin laakiin buug ku qoray u soo xigto yiraahdo hebel oo Ingiriis ama sidan ama BBC ka shaqeeya sidan yiri qoraaga Soomaaliyeedna waa khabiir waxa laga yaabaa 40 sano waxaan ku soo dhex jiray way dhacday qoraayna ku niri intan waan tirtirayna waayo xigashadan nama qabato adaa meeshan joogay inaad adigu iyagu ku soo xigtaan way adigu ha soo xiganin marka inaad kalsoonidaas ku qabtid waa loo baahan yahay taas waan u baahanay xogay inteen aqoon-yahanada English wax ku qora qabkii xogay uu naga inteen geljiraha buu qabkii wali ku jira marka inta waa dhaleecayn runtii aan u baahanay in la ka xoojiyo waliba qaybta aqoon-yahanada waa inaan kalsoonidii Soomaalinimada aan soo ceshano waa anaga in la soo xigta anaga dadka soo xiganin midda kale waxaa jirta qoraaga buugga markuu qorayo marka qaarkood hadal uu si u qoray laakiin isagu uusan dib u arkaynin waayo hadda waxaan bulsho xasaasiyad badan kala dhex gashay hadalkii baa meeshii lagu sii daynaya hadda halkan waad aragteen culture wars waxa la dhahaa ka jira marka waxay sameeyeen waxa dad shaqadoodu tahay sensitivity readers buuggan uu akhrinaya bal cid uun wax ku qoonsan karta inuu ku jirto haddii wax qoonsanka waa la bedelaya inaga waxa ugu daran waa qabiilka iyo wixii dhacay marka qof markuu wax qorayo inuu taa ka fiirsado oo si aysan dadkaysan indhaha faraha ka gelinaynin inuu u sameeyo mana sameeyno waayo inta badan buugga markaan qorayno dadkeenan u qorna magaaladeena ama tuuladeena ku soo bandhigna bandhiga waxa yimaada isla inteeni wixii markaa ma noqonayo wax dadka oo dhan ka dhaxeeya marka inaan taasna runtii qoraaga waan kula talin lahaa midda kale waxa weeyaan dad waxaa jira taariikh kule ummadeena soo maray buugaag qoray geeriyooday buugaagtooda ay baaba'een oo inaad silic iyo rafaad PDF aad ku helaysid laakiin markaad ehelkiisa weydiiso ku tahay buuggan mar labaad aan soo daabacno oo wixii ka soo baxay idinku qaata waxay ku dhahay waxa la moodiyaa wixiiba in ma sha Allah hodan lagu noqonay anaga daabacayna lagu leeyahay waa 5 sano 6 sano baad sugaysaa wali meeshii buuggii sidii ku tagay taasna waxaan runtii inaan u feejignaano xitaa hadaan wadan haysan waxaan dhihi maxkamadda waxaan dhihi lahaa hanti qaran weeyaane waa idinka qaadinaa midda mawduucyada soo noqonaya mawduucyo wada taariikh u badan wax laga wada hadlay kun jeer oo nuxur dheeraad lagu soo kordhinayna anigu annaga ay kan marka intaasna runtii in wax laga hagaajiyo qoraalka iyo higaadiisa iyo maxay ahayd calaamadeynta taas waa runtii dhibta ugu badan oo qoraalki meeshii marka waxaan sameynay qolyahayga Facebooka waxaan dharo nabad sugidda higaada aan dabagal ku sameeyno dadkan af Soomaali ka xishoonin oo waxaan runtii marka qaarkood ka yaqiiqsoonaysid waliba qolan BBC ha ugu darnaatay inaan runtii dadkaas oo kale inaan ku nahdo afkii naga xishooda afka saha ugu xadgudbina iyo midda ugu dambayso akhristaha oo akhristii ay tahay inuu marka qaarkood buug aadan xitaa xiiseynaynin
inaad qoraaga ku dhiirigelisid qaado guriga iska dhigo xitaa laga yaabo ilmaha guriga kuu jooga inay inta egaan buugga Faarax nala jooga dhaqan ay noqoto buugu qoray marka diyaarad ba ku sawiran kayga yar markuu arkaba aab buuggan iyo akhri uu leeyahay diyaaradaas isagu arkaa wuxuu moodayaa buugga isaga loo akhrin karo laakiin xitaa gurigii ilmaha waxa lagu leeyahay ilmaha waxbarashadu waxay ku kala fiican tahay sida guryahooda ay buugaagta u yaalaan ha akhrinin haddaa rabtid meesha ku sawiro ku sharxo laakiin ilmahaasi wax u noqonaysa ilmahaasi dhiirigelin u tahay qoraagiina dhiirigelin ba u tahay oo wixii ka soo baxay af Soomaaligiiba marka taasna waa akhristayaasha insha Allah taala dadka inta jooga intaas baan kaga bixin waa tahay wuxuu inoo raaciyay talooyinkii iyo xalkii jaamac muuse jaamac 5 daqiiqo u dambaysa aan siiyo haynoo soo ururiyo hadalka waayo 20 daqiiqeed haray waxaa leh jamhuuriga jaamacow bal caqabaadka muddo ayaad ku soo jirtay adiga iyo ubbo iyo quraarad iyo hababkaagii faraha badnaa in la tafatiro buugaagta Soomaalida deedna la soo saaro adigu soo saartay waliba buugaag badan waa soo saartay bal caqabaadka ugu waaweyn inta imka halkan lagu xusay ka baxsan adna la wadaag bismillaahir rahmaanir rahiim ma doonayay inaan ka hadlo qoraa Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka hadlo qoraaga af Soomaaliga wax ku qoraa way labadu way kala duwan yihiin waxaan kaloo doonayaa culayska haysta inaan la saarin qoraago kaliya waayo anagu miiskii baan xagan ka fadhiyaa waana dareemi karayaa culaysku intuu leeyahay laakiin sidaad adigu hordhac uga dhigtay qofkii isagii baa fikiraya isagii baa tafatiraya isagii baa daabacaya isagii baa soo qaadaya isagii baa dadka marti qaadaya suuq geynaya hudheelka soo kireynaya dabeedna hadhow wax loo baahnanaya waliba inuu hadiyad u bixiyo oo buuggii u qaybiyo marka culayskaas oo faraha badan baa saaran qofka af Soomaaliga wax ku qoraya inta waxa u dheer qoritaankii af Soomaaliga oo isku culays kala ah waxaynu doonaynaa in aynu intaynu team beerano dabadeedna aynu tufaax gurano caruurteena iskuul ma jiro lagu barto dadka curiska xitaa wax loo qoro waxaanu doonaynaa in qofku markuu yimaado uu waxbarashadii ka soo baxo isagoo dhisnayn haddana inuu wax wanaagsan qoro suurtagal maaha marka culayska faraha badan laga eegayo qofka qoraaga waxa ay in qoraaga la yiraahdo fikirka keen inta wixii ka dambeeya adduunyada kale qofka editorka ah waa dib eegaya waa qolada daabacaysa waa qolada quruxda sameynaysa waa qolo kale qolada qaybinaysana waa waliba qolo kale ka sii duwan marka ilaa intaas soo qaybood oo industry ay soo baxaan oo qabsadaan way adkaanaysaa runtii inuu culaysku kaliya saara laakiin waxaan doonayaa intaas waa in aynu 20 sano 15 sano dambe isku celcelinayno runtii intaan halkan fadhida aynu ka wada hadlayno wax cusub maaha tan doonayna inaan taabta waxa weeyaan geela waa la kala dhici jiray dhaqankii geela jira ilaa hadda la garan maayo buuggiisi loola xisaabtamo buug kastoo la qoro qiimo leh imika taa wuxuu sheegayba kamid ah ehelka in si loo kala baxo la garan waayo wax sharci oo kala saaraya ummadii oo u qeexaya ayaan jirin oo xaqi aniga daan ahaan lahaa publisher-kay siinay adigu daa tahay qoraaga ku siinayay ehelkaaga sharcigii baan jirin Somaliland ma jiro sharci copyright la yiraahdo oo de baarlamaanku baaskireeyo dad kala saaraya maanta hadii la isqabsado halkee baynu uga dhaqaaqaynaa marka takooda muhiimka hadii la doonayno talaabada loo baahan yahay inaynu qaadno inaan horta xagga sharciyada eegnano ugu yaraan barano copyright-ku wuxuu yahay in lagu yiraahdo laga yaabaa Maxamed oo Hadraawi adiga wax ka qoray cid kale wax kama qori karto sida Hadraawi adigu aad aqoontiisa adigu leedahay oo kale waxa laga yaabaa inuu yahay awowgii buu ahaa qofkan sida adigu wax uga qortaan aniga joogay marka horta arrinka fahanka in xeerar buu leeyahay qoraalka iyo daabacaadda iyo wax soo saarka in xeerarkeedii aynu barano talabaad muhiim marka imka aragto buugaagteenu laba qaybood bay u qaybsan yihiin buugaan wax fara badan laga soo qaaday oo hadalkiisu badnayn iyo buuga kaliya wanaagsan oo la isku haysto buug kasto la daabaco sanad markuu daabacnaado baa la isku haysanaya oo ay baad soo keenaysa arrinka labaad ee ku jira meesha waxa weeyaan u baad carabowday ubo 14 sano ka hor ubo waxa ahaa barnaamij higaad sax ah oo sameynaya in higaada uu u saxo qofkii af Soomaaliga wax ku qoraya Soomaaliga culayska haysta waxa weeyaan markaan Ingiriisi wax ku qoraya sababtaan la yahay qofka af Soomaaliga wax ku qoraa dhibaatadiisa ka hadlaya de ugu yaraan Word-ka Microsoft Word ama waxaan ku qorayba ii saamaxaya inuu higaadiga eego grammarkiga eego inta aanu gaarin soo saaraha inta aanu wixii ba gaarin af Soomaaliga taama laha marka ubo markaan anigu sameynayay sanadaha ka hor waxay ahayd sidee baynu af Soomaaliga ugu helaa af Soomaaliga ula jaan qaadaa casriyadan socota oo loo helaa higaad saxe loo helaa grammar saxe loo helaa wax caawinaya qofkan qoraaga ah sameynaya sidii loo heli lahaa bay ahayd talaabada waa laga soo gudbo way maanta alxamdulillah meel wanaagsan baa la maraya ta ugu dambaysan ku noqonaya waxa weeyaan culayska lihi dad far badan waxay ku oranayaan oo marmarsiye laga dhigtaa
anigu marmarsiyaan oo qaanaay xasilooni darri baa jirta afku wuxuu baahan yahay hay'ad hirgelisa hadday noqoto joogsi hadday noqoto afkeenu uma baahna hay'ad adduunyadana hay'adii intay far qaadato ku tira ul qaadato dadka kaga goysay taado qalad baad gashay kaasina wuu saxan yahay kaasina wuu khaldan yahay ma kala saar ummadda kala saarta qofka bini aadmiga waxa weeyaan haddaynu noqono ummad wax akhriya oo buuga qaadata oo suuqa kala saari lahaa buuga wanaagsan iyo buuga qaadata xagga tayada kala saara waayo alxamdulillaah rabbil caalamiin 15 sano ka hor way yaraayeen 20 iyo buug baahan buugta maanta af Soomaali ku qoran maanta marka la eego sanadkii dhawaa bandhigii caalami buugta Hargeysa sanadkii hore iyo sanadkan inta u dhaxaysa boqol buugaag ka badan baa la keenay oo soo baxay sanadka gudihiisa oo la doonayay in la soo bandhigo af Soomaali ku qoran markaana 14 sano ka horna 20 buug ma ahayn buugta qoran af Soomaali ku qoran wareegayay ee suuqa laga heli karay suuqa ka baxay marka tiradii waynu haynaaye tayadii halkee bay qaasa tayadu waxay ku imanaysaa marka taa koowaad oo xagga sharciyada iyo ummadeena laga saaro talabaad oo ah inaynu isqaybino oo de qoloba hawsheeda loo daayo lana la helo cidii laga maaragtay iyo inay soo baxaan oo ugu muhiimsan ku soo gabagabeynaya tahay af Soomaaliga af Talyaanigu waxa bedelay daanta sidoo uu qoray baa jid mariyay afkaan halkan Ingiriisi laga hadlayo wadadii Shakespeare mariyay baa la raacay marka ummaddu waxay u baahan tahay uma baahna hay'ad intay ul qaadato dadka kala saartay waxay u baahan tahay qorayaal wanaagsan oo ummaddu raacdo hagto waa tahay aad bay u mahadsan yihiin jaamac muuse jaamac maxamed yuusuf cabdi maxamed cumar iyo habar wadaagtay Zainab Daahir waa tahay xagga waan ka yimi way fadhiyeen qadar daqiiqada ah waxaan idinka codsanayaa in qof kastaaba ugu badnaan 2 daqiiqadood adiga iido to the point wixii laga hadlay meel kale ha qaban ha argagtamin ha adu maxamedow waxaan ka cudur daaranayaa hal second baan u baahanahay way waxaynu doonaynaa qoraal iyo wanaag baynu raanaynu sameeyno halka markaan soo maray waxaan arkayay waraaq ay ku taalan library-gii iyo rugti kutubta burco ayaa halka yaala haddaanaynu gashanin waxbay noo hagaagayaan ugu yaraan qorayada halkan fadhiya oo mid kasta buug dhigo yiraahdo buugga burcaha loo diro library-ga la sameeynayo waa mid kaliya inuu sameyn karno haddaynu doonayno inaynu marka way iga xusuusin dadka markay hadlayaan well done baashe waad mahadsan tahay qabanqaabiyayaasha xafladan maanta caawa Somali Week iyaguna way mahadsan yihiin anigu waxaan ka mid ahaa haddaan iskiin baro macallimiintii manaahijta joogi jirtay ee buugta ardayda u qori jirtay wax kasta oo manhajku wuxuu ahaa hay'ad gaar ah oo u qaabilsan wax qorista buugta sharci leh meel loo raaco leh luqaddu ay ka bararaysay oo ay ka koraysay professor jaamac mid baan anigu aan ku yaraa khilaafsanahay wuxuu yidhi af Soomaaligu hay'ado uma baahna luqaddu sideedaba waxay u baahan tahay waliba tan Soomaaliga ee urdinka in wali yani qabyada badan ay ku jirtaa institution higaada institution grammarka institution qoraalka la qorayaa institutions caynkaas ay u baahan tahay oo Soomaalida oo dhan koobta oo aan gobol gaar iyo qof qaar ku koobnayn qofku wuxuu qori karaa sheeko curisa uu qori karaa oo haddii aan ku ogol yahay sida fiction oo kala ah ama wuxuu soo arkay oo practical ah hiba wuxuu leeyahay sida ninka halka fadhiyo kalena uu qori karaa barnaamijyada wax inooga hadlayay sida uu ka dhawaajiyay maxamed dhibaatooyinka jira waxaan uga fadhinaa inay mararka qaarkood aanay la suginuun Somali Week ee ay keenaan fadhiyo ay isugu yeedhaan dadka wax qora ama aqoonta u leh qoraalka ama wax qori jiray ama wax qora imiga oo ay markaa doodo iyo seminars ay u sameeyaan si markaa looga gudbo yani carqaladaha noocaas ee uu sheegay mar dhaweyd immigratiyahaton waan hambalyeynaya dhamaanba intay ka hadashay halkan waa la yar gujinayaa wax badan baan sheegi lahaa waana salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xagga waqtiga uun baan ka cararayaa mooyaane Saciid Jaamac Xuseen waxaan isku dayi doonaa qof inaan minisiisa siiyo ilaa 5-4 qof Saciid Jaamac Dabadi
adiga iyo nin halkaa dambe gacanta ka taagayaba hayi siciid jaamac jaanta ii fudude hortaada wixii yaalana ha laga qaado okay siciid jaamac halkay u dhimatay ku dhufo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شن فرديدا أفرميا شن لح بانو النهاي عدي دونيسا إني قرال عريصو قرال عرين طولمون وحكو أولا لح شردي لحداس قف لح شردي أي اللوباهية لح عقبضود وين إن لقى قدبه أي اللوباهية لح ديبان إنه شيء كلية تكوبات يعني معنى هو لحدا قف كان لا يمني يعني كتهم باب إنه يسكت ضيو إنه عريه قرال أما بوق صاروا الصومالي وانا قارنا وان كو هدلايا كل كاستو انتو حانشدا اسكا صورسدو وحين له انا ما قراتي كوغو مدوبانيان مسكحدنا كوغو داليسو ايا لا سو دريريا لحدي بان او غدبيا لحدي waxa weeyaan ta ugu horeysa af Soomaali saxa marat af Soomaali saxa oo la laasimo naxwihi sibu wata calaamadeyntii sibu wata higaadii sibu wata shibane waxa Soomaali waxay ku jiraan halka af Soomaali saxa oo la laasimo hodonnimo af oo la yimaado han hab iyo hanaan toosan hab iyo hanaan toolmoon hab iyo hanaan waa qaabka wax loo qoray oo toolmoon oo la raaco imisa inoo haysaan niyad iyo rabitaan aan la loodin ma garatay oo aan lumino geedka adaga oo la yimaado imisa haysaan afar dad ku xeel dheer oo aqoon-yahana oo cilmiga iyo fanka iyo qoraalka aynu sheegayno ku caanbaxay qoristooda oo mar walba la raaco la higsado oo wax ku oolka ay qoreen si weyn looga waraabo halka ma garatay laga kaydsado imisaynu wadnaa talixaadna wax weyn inta haddaad isku dartid ay talixaad maqan tahay hadda intaan sheegayba hadday midi maqan tahay waa biya wax aliyaal ta ugu dambeysana waxa weeyaan fara ku hayn la laasimo oo mar walba practice laakiin inta hore lixda cidii aan la imani yani isku dayin inay tiraahdo waxbaan curinaya oo afka waana mahadsantihiin waa tahay siciid shamcu uu mahadsan yahay ii soo orod aniga su'aal gaaban aan rabaa inaan weydiiyo qoraayaashii dadkan ninkaas warqada ay soo dhigay su'aal kale oo amaleynaa su'aasheedu waxa weeyaan haddii wax la qoraayo oo la rabo inay jiilka soo kacayaan oo generationka Soomaalida ay ka faa'iideystaan cilmigaana meel mariyaan sidee loo heli karaa luqadda lagu qoro in laga dhigo luqad ay fahmi karaan maxaa yeelay buugtii hore markaa fiirisid dadkeen reemiyii u badnaa waxa referensyada lagu soo qaadanaya waa geedo waa xoolo oo aan fahmin meel ka socdaan meel u socdaan maxaa yeelay waliga geel ma raacin waliga lo maana dhaqin waxaan rabaa inaan wax barto marka sidee la isu haleeshin karaa in dhalinyarada rabo inay cilmigan idinka dhaxlaan inay ugu qortaan luqad ay wax ay fahmi karaan teknolojiyad badan baa jirto cusub isbedeshay eray bixino badan baa jirto ingiliiska iyo luqadaha kale oo dhan eray cusub lagu soo diray sidee inaga marka luqadeena maadaama ay hodan tahay looga faa'iideysan karaa su'aal kale ugu dambeysay waxa weeyaan wax badan aan maqlaa waxa kamid ah mahmahayo oo ciyaalka xaafadda isticmaalaan kuwa odayaasha isticmaalaan laakiin meel ay ku dambeysay ma garanayo because waxa kamid ah wadanahaagi iyo howlaha maraakiibta aan maqlay oo micnaheedu tahay waxba igama gelin howlaha maraakiibta maxaa loo dhahay howlaha diyaaradaha maxaa loo dhihi waayay su'aasha kalena waxa weeyaan kolley markii mahmahadaas la sheegay la iskama dhihin laakiin micnay wadataa micnaha laakiin ma garanayo ta kalena waxa waaye maxaa kaaga 15 oo ah maxaa ka galay 15 maxaa loo dhahay oo loo dhihi waayay 10 15 ka muxuu yahay marka waxa la igu dhahay
bisha 15 caddaha waay marka taana hal ii sheego assalaamu calaykum waa su'aalo badan oo aan kolleyba halkan waqtiga markaan haysana loo eego aan laakiin muhiim ah cabdiraxmaan ii dhaqso halkaa qofkii gacanta dambe ka taagayay baan kusoo khatimayaa waayo waqtigii wuu gunaanadmay aniga dhinaca kalan ka hadlayaa sanadka hore 2018 waxaan ka qayb galay Hargeysa Book Fair sanadkan 2019 waxaan ka qayb galay Muqdisho Book Fair labadaba waxay soo galiyeen niyad aad u weyn dhalinyarada meesha joogta niyad ay u hayaan wax akhriska iyo wax qoraalka iyo waxa soo dhanba dhawaan maktabadda qaranka ee Norway ayaa waxay ii qaadatay inaan la taliyo u noqdo consultant sanadkan aan ku jirno buugta ay lacagta ay gelin jireen buugagta Soomaalida aad iyo aad hoos ugu dhacday waxay yiraahdeen hadii ilaa April haddana ay aan arkayn inay kor u soo kacdo dalabaadkana way sii dhacaysaa haddana maalin dhawada waxa ka jira barnaamij Oslo ay ugu yeeraynayeen bal Soomaalida meesha la hadal waxaan ku yiri xamar iyo Hargeysa dadkii joog aan maktabada lahayn inay niyadaas u hayaan annakii fursadahan haysanayna aanan u haynin waa dhibaato afkeeni in laga saaro liiskii anagoo soo taagtaagan waliba ogaada Norway meelaha ugu fiican ay ku jirto Ingiriiska marka loo fiiriyo aad iyo aad ay ugu horeysay dhimaalkaas jira inta wax qorto badana waxay ka sheegtaan inaan buugaagta la iibsan waxaan dhihi lahaa kaliya buugaagta ha la iibsado online ha lagu iibsado meelahan oo kale ha lagu iibsado dadka lagu dhiirigeliyo xataa haduusan ku anfacayn gabayga xalay aan sheegay dabahoon ee Hadraawi hordhiciisa wuxuu leeyahay maacuun iyo waxaan loo baahnaa in weligeed la isticmaalayna ayaa waxa saaran shelfiska guriga marka aad aragto maartay ku sharaxan halkii kutubo ma yaalan markaad fiiriso guri u yaalo shelfs buug ay taala aad u yaryahay marka dhaqankaas aan iska bedelno oo aan maaragtay dhankaas aan ku dhiirino waad mahadsan tahay calow cabdilaahiyo waa cala maydhano waa calow cirdar horeyo waa calow cusub laacayo waa calow meel laga caraabay caruurihii laga xambaartay oo la wadan carari wayn oo la wadan ciig la hoganin dhadhaab culus laguma saaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرنتن هالكن وصو فريستي وصو استاجي وحويان واد أركتين دبده وحتى برع الليبراري أرنتن ما أنتوا دن لقد واجنيين دت كانوا كمونا أكسنا حاجة وح أخرنتا سيبا سبيشال دت كانوا وحي برتين سكول كنا تكتيد الدراسة سكول كون برتيد تانا وحكيني دل كانوا بدنا بمجالوين كانوا مالها الليبراري marka haday caruurteenu library haysan lahaayeen oo la geyn lahaa library-yada waxay baran lahaayeen akhriska marka arinta aan halkan u istaagay waxa weeyaan in aynu library-yada xoog saarno oo aynu magaalooyinkeena library ka samayno oo hadaynu aragno cid library samaynaysan aynu barbar istaagno taas waxay caawinaysaa awlaadeena iyo dhallaankeenu in ay xoojiyaan waxbarashada ta kalena ay ogaadaan in wax akhrintu ay important tahay taasa haddana keenaysa dawaata la leeyahay buugaagta iibsan maysaan because maynan ku soo barbaarin inaynu library tagno iyo akhrisku inuu muhiim yahay marka intaasaan u soo istaagay waad mahadsantihiin adiga ayaa mudan aad iyo aad baad u mahadsantihiin